ilaahay oo lagu jees-jeeso inay kufri tahay diinta looga baxo aayaadka ilaahay lagu jees-jeeso waa kufri diinka looga baxaa rasuulka lagu jees-jeeso waa kufri diinta ilaahay looga baxo marka haddii qofku uu og yahay maalan xadiidtii nabiga sala allahu calayhi wasalam oo lagu jees-jeeso isagoo og in hadalka rasuulka uu yahay inuu ku jees-jeesaa rasuulka isagoo ku jees-jeesay la mid tahay iyada lafteedu marka yacni waa gaalnimo taas marka waa laga qaadanayo laa tactadiruu qad kafartum taas istihzaaga iyo jees-jeesku waayo waxaan isqaabilaynin aslul iimaan iyo wixii la rumaysnaayo in lagu dheeldheelo ma iskeenayo lianna iimaanku waa muujibu likraam waxa aad rumaysan tahay maamuusay kugu leeyihin waxaad ikraamaysa waxa aad ku dheeldheelaysidna waxaad yaraysanaysa marka iimaankiioo tacdiim keenayey iyo dheeldheesha iyo jees-jeeskaoo yaraysi keenaysay cagsi bay isu yihiin marka ayb dadka marka xijaabka haweenka ilaahay ku farad yeel ku jees-jeeso dadka ku jees-jeeso sunnada nebiga sala allahu calayhi wasalam ayagoo og inay sunnadii nebiga ay tahay iyagoo og sidaas axkaamta ilaahay dadka ku jees-jeeso oo dhahaya markaa aniga aayad baa lagu dul akrinaa markaasu wuxuu le aniga qarnigan 21aad dad gacan ha laga gooyo waxaas ma u malaynayo wax fiican inay yihiin jees-jeeska u dhiman waa maxay qofkaas hadda ilaahayna wasaariqu wasaariqatu faqdacuu aydiyahumaa jazaan bimaa kasabaa nakaala min allah aayaddii aa lagu dul akrinaa markaasuu leeyahay aniga iga dhaaf waxyaabahaas aniga waxaas ma gelaayi ilaahay ma raba inaan ka hadlo ayuu leeyahay waa munaafiqnimo cad waayo taasna wuxuu iska dhigayaa marka nin ilaahay inuu yacni beeninayo iska fogeynayo anigu ilaahay ma raba inaan beeniyo ilaahay ma raba inaan ka hadlo ha igelinin aniga ilaahay buu leeyahay laakiin qarnigan qof wax haday gacan laga goynaa warkeeda iga dhaaf buu ku leeyahay waxaas ilbaxnimo maahan waxaas maahan keyta wakeyta arxan darro waaye waxaas u dhahan qofaa dhagax lagu dilaa soo taaganoo nool cid aan ka yeelayo male layma bari karo uu leeyahay aniga waro ilaahay xukunkiisii waayo soo ma ogin ma ani diin inaan gala ma rabaan ka hadlo munaafiq akbar ah waa kaasna ayb waxa uu sheegayona waxa ay tahay dadkau rabaa inuu been u sheege ilaahay iyo rasuulkiisa iyo aayaadkiisa uusan ba aaminsanayn ayb waayo maxaa keenay qofku waa dhihi karaa waxaan qur-aanka ilaahay kuma jiraan aada sheegaysid waxaan adaa wadato axaadiidta nebiga ma sheegin qofkaas wuxuu u baahan yahay marka in aayaddii la tuso laakiin iyadoo aayaddii la akrinayo inuu yidhaah aniga iga dhaaf waxaas qaarkood waxay leeyn war waxaas wixii aan kusoo dhunnay waayo naga dhaaf meeqa sana aan wadnay leeyihin ayaantan taasaa socota wuxuu ku leeyahay marka yacni diinaa laysku maamulaa iyo axkaam qur-aanka iyo axaadiidta nebiga siday tahay ha loo fuliyo annagaa muddo dheer waxaan soo haynay oo ku dhex wax laga ilbaxayaaba ayuu ka dhigayba iimaankii iyada lafteedu marka waa jees-jees maxaad awal soo haysay haddaad wax fiican hayso hadda aa ka tagtay dee haddaad meel xun taagan tahay qaarkood waa ka cabsanayaan axkaamta qur-aanka inay sheegaan maalan ama xukunkaasaa qofkii waxaa sameeyey xukunkiisu waa saaskan wixisaan sameeyey xukunkiisu shareecada islaamka sidaanay dhahday waa ka baqayaan waxay isleeyihiin haddaan hadalno afkaanu lagu soo taagayahay war waxaan waqtigan miyaad waxaan ummadda u sheegaysaan iyo waxaan waa laga baxay iyo qaanuunku ma ogola iyo waxaasay ka baqayaan markaasaa diintii si qalloocan u sheegayaan marka ayagoo kuwaas ka cararaya yay idin aadaynin ka cararayaan waxyaabahaas oo dhan marka ma saxsana baabkan istihzaaga yay ku jiraan aayaadka ilaahay rasuulka iyo sunnadiisa iyo ilaahay subxaanahu watacaala lagu diinta qofka caayana ama rasuulka caayana inuu ku gaaloobaya aayaadkana waa laga qaadanaa dadka marka yacni marka diin iyo wax loo sheegay diinta caayo ama rasuulka caayo hadhow wuxuu ku leeyahy waa xanaaqsanaay aniga iyo qofku ma waalnayn qof waalan ma ahayn waayo hadde nin dharka tuurto waalan haddii uu yahay qof waalan cidii wax u qaban maysa